marka la saddex bil waqti ugu daraa hal sanad oo soo laaftay saddex bil gabadha ay igu luguysay gabadhii allahay macnaha allah wala gabadha la way igu luguysay gabadheed intaan ka badan lagu sugaayo gabadhan soo dhisantay ay saddex bil muddo haleysay marka dambe maamada galabtii marka saas waxaan lahay ana maanta kharash ma haystay ay gabadha qof dhisanaa jira qof dhisanaa diyaar oo jira gabadha maxay igu lugooni amalayna maamada dhisanayo qofkii qoyska wataanba qof wiil macnaha adii maamada ay du tahay lay gabadha iyada dolo Soomaali maada isku barteen ay diidida habarteeda dhaaday gabadhan nina u joogta waa maqan yaala ninka ninkaas maqan oo sheegay aniga markaan imaaday gabadhii muddadii aniga daraad bas maalin duqday dhaaday iyo wacdi galab maqribka amal oo ku duceynay dhaaday ilmaha dhalinyarada saaxiibayaasha galaw wargarb isyaadeh laynada ka xashoon bis ayaal saaxiibanahay oo deegaanka u dhisay qaar oo macallimiin qaar macnaha xoogsatay hadaniyo qoftana jaalay oo sanad amal ay joogto way doonantahay kharash way iga baxay maanta kharash la'aan ahay waxaan leeyahay saaxiib Ali Caawa dhalinyaradiin wiil dhalinyarada u sheegay wiilkii waxaan leeyahay dhalinyarada ana oo tagi doona isku is arkayna بس ويا محمد بس مالنا قبر ابن ابتو اهل عقي صدرتي كنت ندور العاب كوكتي داهي ويا اللي العاب قاره يقدنت راشينك اللي قلنا لها خرش بدن يقدنت وديار خرش بدن يقدناتي وانا العاب قاره ويا شو سريرتي وحي دايش ويا اللي ها وحي حوقي بدنا حاف وايس حاف زائد كايغا مقام او معناها قرش كحدبنا markaas walaalay saddex bilood ma ogow galab meel aan iska fadhiyo oo hooyada 12 saac xilli tahay khamiistii gabdhaha mid walaasheed iida israaca guri adeerkeeda meel yobo wallaha magaalada ku fog keela xagiisa aadeen waa soo noqdeen aniga meesha fadhiyo hadal maxaa maqlay maamada dhaysa ninkan nin guursanay malahay nin guur u socdo maahay gabadha walaasheeda dhibay lugoyna ogow waa soo baxay markaas la isay wax u jiraan markaas la gabadha adeerkeeda siinaya dhaaday adeer bari guriga ku bilami wiilka guriga ha ugu imaado marka ma ninka ka mid kale la wado maana adigana hore waa lagu siiyay doonas kharash laga qaatay waa doontay la markiis markaas waxaan dhahay hooy maxaa ka wadaanay anigii wiilka inta sano isla joognay oo kharash iga baxay ay tabar la'aanta malsuuna maanta qof wax u haysin bari wax waa heli karaa hooy seeta markaas dhagooyday masaasa buu maama gabadha soo guudaan intaan ay luguusay abu hadda ma dhisnaysay maamada dhaa saddex bilood ku dhisan kartid aan gabadha ku soo diyaar noqon waran waxaan ay saddex bilood kharash ma haystay saddex bilood diine wiilkaada ogow saddex bilood ku dhisan karin ogow iska tag taas adaa lagu dhaha qof diyaar ah iyada dhaa caruur inta dhala raba maxay lugoon iyo xasidi waxaan leeyahay intaas nafsi had maanta nafsi iga gashaana oo qofkan had guursatid ani xaqi iga maqnaa oo qarashka iga galay oo maanta video u nooleen oo anaha qof walaal u lahayn ala asaasay ila bas kid meesha ka soo tooy xaafada soo baa bas ani iska ilmeena xaafad ka soo baxay ala san akhrame waxanti iyo wax ka soo leeyahay maxaa marka hore qof macnaha dad islaan ahay qolkii axdiga qof maanta qof islaan la siiyay ka soo doonto sharaf ka soo doonto